الله تعالى وبركاته كلا وعن كنا سود وهذا داود يا البرنامج كيني محاكرنا وهذا على وإذن سودادين شرين أنا قلنا مصطفى رسم السبرية مع عدي ولي بانيجو شكر محمد ما أنت وحينه مرتيا سيداد وذاركتان با إن قرايد وين إن نجح كسر دوا ولا لا برنامج كيني محاكرنا ما سنتهاي وحشرف وين ما أنت إنه لجوك تقراء بوكا وحنا مي قروح دي أو كهلا يا دباتوين كإلكم من قبلها الصوماليات يسعدنا نجح مر لبعض يمركوا بتسودوا aad baa u mahadsantahay Mustafa barnaamijkan aad baan u xiiseenahay maxaa runa mahadsanid najax su'aasha koobaad ku weydiinay waxa waaye maxaa ku kalifay gabdhaha Soomaaliyeed inay diirka iska dhigaan oo iscadeeyaan aad baa u mahadsantahay erayga isticmaashana waan ka helay inay diirka iska dhigaan يعني إني مدب كود الدوريان ضد فهمين موت وها كسبب يعني اللي لها كل سوني درا يو سيدو كلام قرنا ساي سامنت ضد كشيء هنو إيماني أو مدب كبدلن وها كسبب يسيدو كلا ركع وما هالسنت ما كرجو ساي وكسبب يعني على الذكر رجو هو كسبب يعني ننكستاي بقول كيو سجاشن مرأة أفتي سمين هاي عندك أن ويدين هاي النود وسمين هاي وحي وضع عدسين هاي قبر عاد بحسن مدام عادية يوشان كلا أما 8 كيلو كل صاحبة عاد ربتين 8 قبل على عاد أنا كنا أنا نهين مدفك عن هاي قبل ما رينا وقصر قبل السيا إذن كإني قنع سيني سعد يسو نجح وحاجر أبوك بلشة الصومالية مقالة مقدشات وسويتي وحنا مية قروح ذلك بلا شرحات كومن بوكاس محوك هالليا aad baa u mahadsantahay kitaabkaas ama buugaas waxa ku qoran ilaa iyo 3 qaybood buu leeyahay cutubka koowaad wuxuu kaga hadlayaa waxa ku sababay gabdhaha inay iscadeeyaan sidoo kale cutubka labaad wuxuu kaga hadlayaa dhibaatada ay leedahay يعني gabadhu inay iscadeyso oo midabkeeda dooriso iyo waxay ka dhaxlayso dhaqan ahaan anaka diinteena sidee yani Soomaaliyeed dhaqan ahaan say u xuntahay diin ahaan sidee u xuntahay iyo caafimaad ahaan say u xuntahay qaybta u dambeysana waxa waaye talooyin ku saabsan in qofku waxa iska daayo shakhsiga mursada sidoo kale aniga waxaan leeyahay gabdhaha oo kaliya ma isticmaalaan wiilashu sanadkan way isticmaalaan najax kuntii gabadhii ayaan soo taaganay maxad kula talaleed gabdhaha Soomaaliyeed ka dhageysanaya barnaamijka maxaa ka runa ama ka daawanaya farinta ugu dambeeyay oo aad codkaada ku biiri lahayd maxay ahayd waa mahadsantahay inaad fursad ii siisay inaan la taliyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed wiliga gabarba maadaama midab dooriska la wada isticmaalo anigu waxaan kula talin lahaa inay yani joojiyaan abadba anagu waxaan leenahay midab cajiib ah oo midab maarin ah waa midabka labadana hadda aan leenahay waa maarin casaan galay waa midabka madow ka taga casaan cadaan aan gaarin baleeyahay marka dhamaanteena waa intaas gulsoonida inay qabaan oo ay midabkooda jeclaadaan kiimikadana cuduradeeda iyo dhibkeeda iyo ciqaabta aakhira u jirta ay iska daayaan.